masjidka alhuda oo dhismihiisu ka socdo degmada boon ee gobolka saal isla marhaatana ka kooban saddex qaybood oo qaybta rag ay ku tukanayeen qaybta haweenka ay ku tukanayeen qayb kale loogu talagalay in lagu barto xifdiga quraanka kariimka iyo barashada diinta islaamka ayaa maanta qaar ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada boorama waxay ku baaqeen bulshada khayrka jecel inay ka soo qayb qaataan dhamaystirka dhismaha masaajidkaasi oo hadda dhismihiisu marayo fooqal fiyaaraha isla marhaatana uu dhismihiisa gacanta ku hayo qaariga weyn ee Sheekh Xuseen Nuur Qalinle waa kuwan haddaba culimadaasi oo baaq u diray dadka khayrka jecel kana waramaya faa'iidada diinta islaamku ku sheegtay in masaajid la dhiso walaalayaal maanta waxaan nila wadaagaynaa oo nii soo gudbinaynaa dal iyo dibadba masjid weyn oo jaamica oo laga wado dhismihiisa magaalada Boon oo baaxadda uu ku fadhiya 30 ay tahay afar fasal oo madrasada ay raacsan tahay masaajidkaas oo maraya imika daaqadaha dushooda maraya jingad saarkii u dhow lacagta lagu qiimeeyayna lacag 70,000 ilaa 80,000 oo dollar ay tahay masaajidkaas ayaan maanta ni soo bandhigaynaa in laga qayb galo dhismihiisa rasuulkuna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna qofka masaajid dhisa ilaahay dartiina u dhisa ee dhismihiisa ka qayb gala ilaahay subhanahu wa ta'ala guri ayuu jannada uga dhisaa dhismaha masjidka la dhisaya ama laga qayb galay mala yaani in badan iyo in yar qof kasta intii uu awoodi kara inuu kaga qayb galo dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala wasiiyay waxaan ka codsanaynaa ee dal iyo dibadba jooga inay masaajidka soo dhisaan oo uu mas'uul ka yahay fadiilatu Sheekh Xuseen ee sheekhi caamka ahaa qaariga ahaa Sheikhul Qurra ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdiyo halka sidaad arkaysaan waxa ku yaala binaa masjidul huda masjidul huda waa masaajid dhismihiisu socdo sida sawirka ka muuqata oo ka socda magaalada Boon ee gobolka Salal waxa weeye waa masaajid Sheekh Xuseen khayr Allah si qaarigeena Sheekh Xuseen Nuur Qalinle ayaa masaajidka wada iyo injineer Xasan meel ku haboon oo munaasib ah ayaa sheekhu ka bilaabay oo sidoo noo sheegay waxa la socda macad ama markas quraanka lagu baranayo ilaa 4 qol ah ayaa isagana raacsan marka dadka muxsiniinta walaalaha muxsiniinta ahlu khayrka waxaan ugu yeeraynaa inay ka qayb qaataan masaajidka iyo madrasada wada socda halkaas markaskaas magaalada Boon laga dhisayo oo sheekheenu uu ka mas'uul yahay sheekheena ku soo hagaajiyaan wixii ay ugu tala galeen say culimada iyo injineerkiiba naasu tilmaameen masaajidkaasi waa masaajidka yaani maaragtay laga dhisayo magaalada Boon una yaani maaragtay dhisayo sheekheena Sheekh Xuseen Nuur Qalinle waxaan markaa walaalayaal yaani halkan fariintan laga soo gaarsiinaa ay tahay masaajidkii waa bilow intiisi badan baa iyo hadhan marka waxaan inagu boorinaynaa oo yaani maaragtay walaalaha muxsiniinta ku tirtirsiinaynaa hawsha inay ka soo qayb qaataan waxaan ilaahay uga baryaynaa subhanahu wa ta'ala cidii ka soo qayb qaadatay hore iyo cidda dambe ee ka qayb qaadan doontaba ilaahay baan u baryaynaa waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu barakeeyo cimrigooga inuu barakeeyo maalka inuu barakeeyo awlaadda inuu barakeeyo in yaani maaragtay camalka uu barakeeyo ilaahayna subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadkooga ugu daro ayaan ugu soo duceynaynaa insha Allah ta'ala kulli masjidkaasi Boon ku yaala aad baa loogu baahan yahay insha Allah ta'ala kulli waa dhamaan doonaa laakiin waxaan doonaynaa dadkaas inay ka qayb galaan oo dhamaystirka maadaama uu taagan yahay fooqal fiyaaraha masjidka intiisii badneed baadhay waxaan doonaynaa qof kasto ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr oo siiyay intii hore ka qayb gashay ilaahay khayr Allah siiyo in laga qayb galo insha Allah doon hadii la yiraahdo culimada soo dhamaysay waxay taagan tahay madalladii yuqridullaha qardan hasanan fayudaa'ifahu meel wax lagu bixiyo waxa uu khayr badan baytun min buyutillah waxa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam u lahaa idaa maata al-insaanu inqata'a 'amaluhu illa min 3 illa min sadaqatin jaariyah kamid ahayd oo cilmi intafacu bihi oo waladin saalixin yad'u lahu meel wax lagu baxo waxa uu khayr badan baytun min buyutillah wixii la gashaday masaajidka ku yaala magaalada Boon ee uu mataqaana mas'uul hadda ka yahay gacanta ku hayay macallinkeena ustaadkeena sheekheena Sheekh Xuseen Sheekh Nuur Qalinle waxa weeyaan waad maqlayseen halka uu marayo iyo sida uu yahay iyo mataqaana waxa weeyaan waxa uu baahan yahay
marka meel wax lagu bixiyana halkaas u khayr badan aan la baxno waxaan leenahay walaalaha muxsiniinta ah ee gacmaha wax ku haya wax yar intaba aan kula baxno meel wax la dhigtona halkaas u khayr badan geesiisa waxaa halkaasi ka hadlay injineerka gacanta ku haya dhismaha masaajidkaasi injineer xasan nuur qalinle waxaana ka warramay baahiyaha masaajidka u baahan yahay dhismihiisu waxa weeyaan waa 4 galaas 3 galaas oo ragga iyo galaas weyn oo dumarka iyo qaybtii dumar ku tukanayeen iyo masaajidkii iyo qaybihiisa weysada iyo saawidaha marka jagada ku yeelan waa 30 sanad horeba oo u maqasheen qiimaha kolkii hore aan ku qiimaynay wuxuu ahaa 100 iyo wax la jiruha imika 30 lacag 30 ku dhow way gashay sheekhu 80 buu idin sheegay siday doontaa haato waxa weeyaan nin walba wuxuu la bixi karo masaajidka wixii u baahan yihiin baan galaya waxaan ana u baahnay ma galayo waxa weeyaan nin walba wuxuu ku darsanayo insha Allah waxa weeyaan isaga laga sugayaa wax nin walba wuxuu ku darsanayo ugu dambeyntii waxaa kasi ka hadlay ismarhaatan si faahsan ugu warramay dhismaha masaajidkaas iyo goobta laga dhisay degmada Boon sheekha gacanta ku haya dhismaha masaajidkaasi qaariga weyn ee Sheekh Xuseen Nuur Qalinle waxaana uu yiri masaajidka laga soo wada hadlayay oo magaalada Boon ku yaala masaajidkaasi maartay waxa weeyaan waa masaajid magaaladu aad ugu baahan tahay weeyii magaaladuna aad imka u korodha kullay jidka maartay waxa weeyaan maraya Djibouti ka imanaya ilaa Ethiopia galaya jidkaas ayaa maartay wax weyn darafkiisa mara marka waa meel istiraatiiji oo fiican oo ku yaala marka masaajidkaasi insha Allah taala cidii wax ku darsata aad baan ugu ducaynaynaa ilaahay maartaa ka abaal mariyo masaajidku waa baaxad weyn yahay kullay saad sawirka arki doontaan masaajidkaas maartaa waxa weyn waxaan ugu talagalnay inuu noqdo markas quraaniya musalla lagu tukado masaajid lagu tukado jimca oo jimcaha laga oogo tullaabta maartaa baadiyahana maartaa waxa weeyaan laga soo qaado baadiyaha kuwa wax baranaya maartaa dadka wax baranaya baadiyaha laga soo ururiyo sidii maartay kullaajo kale maartay wax weyn loogu dhigo waan ugu talagalay meelaha galayeen iyo maartay dhulka galayeen saawidaha galayeen iyo waxna waan u diyaarinay 40 arday oo maartay baadiyaha laga soo ururiyo kulli khayr weyn ma ka damacsannahay insha Allah inuu maartay masaajidkaasi u noqdo manbac u noqdo mantiqada oo dhan Boon iyo wixii hareeriyeega إلهي مارتي وحنا كابل مريعي وحكو درستا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير مصطفى عرالي بورما